Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay bandhigga hibada iyo hal-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed kaasi oo ka socday muddo 2 maalmood ah, waxaana ka soo qayb galay in ka badan 1,000 dhalinyaro ah, waxaana lagu soo bandhigay bandhigga hibada iyo hal-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhex leeyihiin bulshada. Bandhiggan oo isu agaasintay xarunta Kulmis waxaa gacan weyn ka geystay maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportska xukuumadda federaalka Soomaaliya. ugu horreyn waxaan isku dhiirigelin jiray in aan wax qori karo buugaag fara badan. Waa buuggii ugu horeeyay aan soo saaro waaye technology. Waan jeclahay buugaag kaleeto oo ku saabsan Soomaaliya ku saabsan buuggan inaan sii wado waan jeclahay ilaa adisha 2, 3, 4 ilaa iyo maanta waxaan muuqataa dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan haddii la waxay jiray maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waa diideen maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan muuqataa inaan ka kaaftoonay inay soo baxeen dhalinyaro maanta inaan gacmaha hoosano daawashadaha nabada barnaamijkeena labada maalmood noo soo socday intaasoo loo weynahay wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakaatuh.